dhawaan ayaa ahayd markii Sheekh Barbaraawi muxaadaraha uu jeediyay uu kaga hadlay timaweynta taasoo sheegay timaha oo lala baxaa aanay ahayn caado rag oo ay ku tilmaamay inay tahay caado dumar. inaga caadada qowmkeena kamid maaha inay raggu timaha kala rogaan walihaada ninka timaha kala rogaya waa nin dumarka isu ekeysiyay inaga wixii nabigu uu diiday ku dhacay hadduu cibaado ku sheego timaha in la kala rogo iyo diinna waaba bidco iyadu arrinta ku saabsan timaha la bixitaankooda iyo qaab feedhitaankoodu arrin cibaado ah maaha xataa sunno ah maaha waa arrin caado ah rasuulku timaha wuxuu la baxayay sidii qoomkiisu ay ula bixi jireen markaa dhexdooda caadada ka ahayd waxaan u feedhayay sidii qoomkiisu ay u feedhan jireen sida saxdiina waa sidaas weydiiyey su-aal taalla midana aan hor dhigay Sheekh Xasan Sheekh Cali oo ku magac dheer Badruddin waxaana uu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأخيار أما بعد مركز كواد أدى أني كما هدعليني وأنا كله وهي في قاعد كبرجة أنا محاضرة أسمحي إنه لم قطع من هرس مركز كواد قفة أو شرعات محمدية كقفة أو نبي صلوات ربي وسلامه عليه كقفة أو أن أسأل يراتون لهين هذا اللي يسكيري معايا لي waxaynu bartan ku haynaa oo kitaabta axaadiista iyo shamaa'isha nabiga ka wada waramaysa dhamaantood inuu nabigu timaweynaha timaha oo lala baxaana waaba waajib ah isagu wuxuu ka hadlay sheekhaasi inaysan sunno ahayn inaysan caado carbeed ahayn inaysan caado Soomaaliyeed ahayn bal waxaan ku leenahay waaba waajib ah ايش هذا sidee waajib ku noqotay hadaad tiraahdo aayada waydabtala ibraahim rabbuhu bikalimaat bismillahir rahmaanir rahiim a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن آيادا هذا شروح ذكاءته واحد تلمامسا إن نبي إبراهيم إلهي أمري أرمه أما وامر يواجب لسيه وحال شيء طبعا أرين إلا أمري طبعا كأرين وحا كوتشري إنه تما لبحه أو سيدنا وكلا برا أيها كوتشري وديت نبي إبراهيم النبي قال أن الأمر إنه راعه تاك وراعه وحي أن لقينا هين اللهم صل على سيدنا محمد ديت نبي إبراهيم واجب بكوهد أنت ما لبحه ديتنا محمد السنة يكون هيدو أصحابتي نبيك يسلف هذه الأمة ينبي لفتي صلى الله عليه وسلم ولا بحي هدي اللي هذا النبي كليه لا بحي دقن عربيات بهذا السيدة وداد كشجع دقن عربيات هم بقول بحي عربتكم مثلي يدت كيس كل حجلي ما هي أصحابتي نبي يقول بحي صلاة ربي وسلام عليه يقولنا مرة دقن يدت كل حجل كليه كاهي مد هذا كان واحد كستو نبي يسميه ما السنة اللي هذا وحي النبي يسميه أما وحي ويري أما وحي أكتس اللي يري أو النبي يقول الدين أنت بنا ويا بل نبي أحاديث وجود عيي أيات شرقف كتما أنتو لبحه حاجاتية كدب من النظام كامرية نبي صدح مولود بتميز قارن صلاة ربي وسلام عليه إن السنة ياشا وأضجع كم تهاي تاسا كود دليله نبي كتميز واحد حادث ما مسأين مر دكتة أي كرك هذا مريين مرة دكتة هوس هذا مريين مرة إني قربها كدجين وحكلا حديث المامسة النبي صلوات ربي وسلام عليه وسن صدح حجة الوداع وقدم بيجي هي صدح مر مويه عمريgiisa mooye inuusan marka laba timaha jarin ay tilmaamaysaa xadiis waxa kale iyadana ku raacinaya asxaabtii yaa la baxay imisaana lagu xusay waxa bartan ku arkaysaa xadiis oo tilmaamaysaa in nabiga timiisa inta ugu badan dhigta korkeeda ay ahaayeen waayahay qaarna waxay sheegayaan in labada garab ka degeen waxa lagu khaas yeelay waxa la sheegaa 13 saxaabi sabaxo hagaajiya kadibna nidaamka mariya nabigu saddex meelood bay timiisu gaareen salaatu rabbi wa salaamu alayhi إن السنة ياشا وأضجع كم تهاي تاسا كود دليله نبي قتميس واحد عجز ما مسأين مر دكتة أي كرك هذا مريين مرة دكتة هوس هذا مريين مرة إني قربها كدجين وحكلا حديث المامسة النبي صلوات ربي والسلام عليه وسن صدح حجة الوداع وقدم بيجي هي صدح مر مويه عمريgiisa مويه إنه سن مر كلا بتمها شرين أي المامسة حديث وحكلا أيضا نكون راعينا يا أصحابتي يا لبحي إمسانا لقوا حصي waxa bartan ku arkaysaa xadiis oo tilmaamaysa in nabiga timiisa inta ugu badan dhigta korkeeda ay ahaayeen waayahay qaarna waxay sheegayaan in labada garab ka degeen waxa lagu khaas yeelay waxa la sheegaa 13 saxaabi asxaabta nabiga kamid ah inay timoyin ahaayeen waxa kamid ah Abu Ubayd ibn al-Jarrah wa Umar ibn Yasar wal Hasan wal Husayn wa Ali ibn Mas'ud ana sha'ruhu waxa Abdullah ibn Mas'ud isna la sheegaa kaana yabluqu tarquwatu inay
oo qoortiisa timigu ay ugu dhacayeen oo karaysimaha gaadhayeen sheekh waxaan ka leeyahay xaka alxaafid ibnu xajar can alqaadi ciyaad wuxuu imaamkaasi warinayaa ana alfarqa sunnatun ana alfurq kala jeexa timaha la kala badhaa inay sunno nebiga ahaydba wasunida waxaa kaloo loo daliishaday oo loo cuskaday ilaa annahu huwa alladii istaqara calayhi xaala rasulillahi sal slam in xaaladii nebiga sal slam axaadiista caaisha ay warinayso nebiga bartaa ayaan kasoo bilaabi jiray lafta madaxu ay ku dhammaato markaan timaha u kala badhayo ilaa iyo foodiisa ayaan kasoo raariidi jiray oo caaisha ayaa tilmaamaysa inay nebiga timaha u kala bari jirtay waxaa kaloo xaafid can bacdulculamaa uu ka warinaya ibn xajar ana alfarqa waajibun in timaha la kala badhaa oo timaha lala baxa un soomaalideena xataa timaha way la bixi jirtay waa la weyneyn jiray oo taasi dhaqan soomaalidu carabta ay ka keentay ahaydoo waqtigaa hore timaha in lala baxo oo la weyneeyin baa muhiim ahaa laakiin nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu waajib ka dhigay in la kala badho oo nebiga ayaa taa dambe waajibiyeyba marka wawajhu annahu qad jaa xadiidu ibni cabaas kaana yuxibu muwaafaqati alkitaab marka hore nebigu wuxuu ahaa alkitaabka inuu waafaqa ayuu jeclaa oo timaha way la baxayeen oo keliya saa daraaddeed intii kadib waxaa nebiga la amray inuu timaha kala badho isagoo ahlulkitaabkii intii islaamta mooye intii kale isagoo islaamaa lagu khilaafayo ayuu nebigu timaha kala badhay waana waajibba timaha in la kala badho saas axaadiista iyo imaamyadu wada cadaynayaan waqad xaaka alxaafid ibn xajar anahu wiy biqowlihi asaxiixu jawaasu sadl walfarq waxaa bannaan timaha in toos loola wada baxo oo aan la kala badhin iyo in lala baxo oo la kala badho laakiin wixii kaleba ma banaana allahuma salli calaa sayidina maxamed mid kalean ka odhanaya bartan timaha oo sunnahooda la hubo la bixistooda kala badhistooda oo axaadiista ugu badana nebigu ay ka wada hadlayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu geesta kale waxaa isna aan wax ka weydiiyey mid ka mid ah culimada timaweynta oo ku sugan xarunta sheekh yuusuf ibnu maama ee magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil isaga oo fariimo kala duwanna u diray sheekh berberaawi waxaana uu tilmaamay alxamdulilah wasalaamu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacdu waan dhowahay walaalo tv-ga waan salaamayaa anigu su-aalo yaroo kooban baan halkan ka oranayaa sheekhan sheekh berberaawi laydhaha beryahan dambe dee culimmadumuu cambaareeyaa isagoo culimmadii ka mid a haddana ayuumuu culimmada ayuu cambaareeyaa door hore ixtisaam ayuu cambaaraynayuu dembiye ku eedeynayey imikana arrimo shareeco ahoo diinta ku suganoo axaadiistu dhigay amba lagaga hadlay aanay dee cadadkoodu aanu wax yar iyo wax u dhowtoon aanu hayn ayaabuu dafiray uu yidhi nebigu wuxuu ahaa caadaysta nebigiibaa uu halkaa dembi ka galayoo nebigu wuxuu ahaa dee kii laynoo soo diray waa laynoo soo diray nebiga dhaqankiisa calayhi salaatu wasalaame iyo sifihiisa waxay ahay diin ilaa suuliga markuu galayo ayaa axaadiistu ay xuseenoo ducadu akhrii jiray labada adinku horaysiin jiray waa lagu xusoo diin bay dee ahayd nebigu waxa dee caade iyo rawaayad nebigu kama shaqayn jireen nebi ilaahay soo dirtay oo ummaddan soo hanuuninaya oo jidkiisa la raacayo ayuu haayo aayadadii ayuu haa waxaan halkan ka farayaa horta waxaan leeyahay hadday jaahilnimo ka ahaydna ka istaaqfurolayso hadday jaahilnimo ka ahayd berberaawiyow ka istaaqfurolayso haddaad dee u kasaysana nebigiibaa waa dafirtaa tiri caaduu ahaayo daliilba muu hayne dee taana waxay la tahay inaad islaamnimadaabaad kaga baxaysaahe halkaanuu dib uga soo noqaanka odhan laha in dee culimmadu dhaleeca iyo waxaan dee aan sida dee jirrida ay culimmadu meelaha uga hadhadashana waa laga wanaagsan yahay taasaan kusoo gebagabaynaya anuu fariinteeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdikariim ciise cabdulaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil